صندوق موسى uu dhigtay boorama saylac luhaya dila uu dhigtay hadii cod buuran lagu rido wallahi umada Soomaaliyeed oo dhexdeeda dad ka takooran oo doqma oo liita oo hablooga la guursan baa noqonaysa sidoo kale waxa ay farayaa in la dagaalamo ma aha jidka kaliya ee wax lagu saxo waxa jira habab nabdoon oo ka xikmad iyo waxtar badan dhimasho iyo dhiig daata dhiiguna waa habka ugu dambeeya ee dulmi lagu diido sidaa darteed maanta xikmadda aan idin farayaa waa inaan muuse codkeenna kaga aarsano isaga iyo kuwa la midka waa in codkiinu 180 kun ee cod yaala muuse maanta laga codeeyo dawladnimada iyo heshiiska bulshada darteed waxaan u dul qaadanay laba wiil oo ka hore ay dawladii Soomaaliya dishay aabihii ama hooyadii ama walaalkii ka dambana ay sanam dishay mid waxa la yiraahdaa aabaha wad xusi kartaa midna ma xusi kartid bal ma soo wada qaadi kartid waan u dul qaadanay doqornimo loo qaato waxa la marayaan la yiraahdo qof aan sanahayn badalka loo dooran maayo qof aan sanahayn Soomaaliland ma la maraya halkaas aan la maraya taana ma aqbalayno waan ku cildaya waxaan leeyahay way xidheen ayar bay xidheen mar horena waa sheegay hadda bareeri dilisaan hadda afka soo duubanaysaan diyaar baan xildhibaan maxamed abiib yuusuf oo horay muddo 3 maalmood ugu xidhnaa xabsiga Mandheera ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay xadhigiisa xildhibaanku waxa uu markii ugu horeysay shacabka Soomaaliland iyo sidoo kale asxaabta hoggaanka mucaaradka ee Soomaaliland uu uga mahadnaqay sidii ay uga hadleen xadhigiisa iyo sidoo kale ficiladii iyo talaabooyinka ay qaadeen xildhibaan abiib waxa uu sheegay in shacabka reer Boorama uu isagu u diiday inay mudaharaado iyo qasameeyaan markii xadhiga loo geystay waxa kale oo uu ka hadlay waxyaabo kala duwan ujeedada xadhigaygu waxa laga lahaa ujeedooyin waaweyn bay xukuumadda ku lahayd waxa la doonayay in awda laga rido colaad lamida tiilas caanood baa la doonayay waxa la doonayay in lagu helo cimri dheer iyo in laga dhigto jid doorashada lagu diido waxa la doonayay in la geliyo deegaankayga xaalad amni darro oo meesha ka saarta dooda siyaasadeed ee aan qabno waayo ma jirin dambi aan galay ma jirin dambi aan qaran ka galay ma jirin dambi aan qof ka galay oo aan xadhi ku mutaysan karayn waxa la doonayaa waa kuma maxamed abiib maxamed abiib raba muxuu doonayaa bal isweydiinaya waxaan u sheegayaa ma yihiin nin aragtida uu qabo xadhig iyo caga juglayn uga tanaasuli kara waan ugu celinayaa in badanna waan u qeexa ma yihi nin dagaal loo haliilayo iyo dib waddanka laga rido lagu xalaalaysan karo aniga liiga ma heli kara taana axmed abiib waxaan aaminsanahay aragtidii Mahatma Gandhi baan anu aaminsanahay in badanna warbaahinta way iga maqasheen anu waxa aan doonayo ee dalkan inaan ka hagaajinaan doonayo aragtidaan aaminsanahay diyaar baan u ahay xarig iska daayay inaan u dhintaan jecel laakiin inaan qof dilo ma doonayo aragtidaan aaminsanahay waayo hadduu qofku doonayo inuu qof dilo waa dilaadee laakiin nooleeyo ma sidaa darteed aanu dadku inay nolol helaan baan doonayaa taasaan u taaganahay in aniga la dilay waan ogolahay waxaan leeyahay way xidheen ayar bay xidheen mar horena waa sheegay hadda bareeri dilisaan hadda afka soo duubanaysaan diyaar baan haddii ay sii socoto ku tumashada sharciga iyo tacadigu waa waajib in cid kasta oo lagu xadgudbaya ay istifaacdo diinta islaamkana saawku qofku istifaacaya walaalayaal dan yarta ayaan qalbi jilicsanahay ee inta kibirsan uma qalbi jilicsani uma naxo caadifadaydu inta liidata ay la jirtaa siyaasadayda se aqliga ayaa xukuma garaadka ayaa xukuma calooshuna ma hogaamisan siyaasadayda waxaan u taaganahay cadaalad iyo sinaan waxaan doonayaa dal iyo dad isleh oo ujeedo ku midaysan baan doonayaa oo aan loo qaybin qabiil iyo xaafad waxaan doonayaa dal aan madaxdiisu ka ceeshin masaakiintiisuna aanay ku dhex gaajoonin baan doonayaa dadkooda ladan una sharcigu qaban ka miskiinkaana xabsiyada laga buuxiyo
dal sharciyadiisa iyo qawaaniintiisa aan keliya lagu fulin dadka masaakiintaan doonayaa dal isla xisaabta ku xalaal iyo sharci ka yahay baan doonayaa intaasba waxaa iga maraga sidaan dalkiiyo dadka ugu shaqeeyey ee aan danaha shacabka uga doodayay intii aan xilka hayay gabiga afkuriyaan kusoo gabagabeynaya intaa waxaa leeyahay yay noqon baahidu baqay oo anaa riday baga iyo kufaanfaan baacsa iyo tafiirgo ha ahaato baahidu kasbasaasay subagii biixi jabay kabkabidii hambukooday baantii bulsho liicda kicinteed intaana afkuriyaan loo naxariistay ayaan ka soo ammaanaysanay sidaana damiirkayga ayaa ii sheegaya xaalka dalku haddii aan tusaale yar idinka siinayana waxaa ka mid ah xabsiga aan ku jiray ee Mandheera waxaa ku xidhnaa 700 oo qof kuma jirin mas-uul hantida ummadda boobay oo la xidhay kuma jirin mas-uul qof shacaba si qalada ugu xadgudbay kuma jirin xaakin intuu xukunka xumeeyey ee ummadda si cadaalad u xukumi waayay la xidhay kuma jirin kuwii ciidanka qaranka jabiyey kuma jirno xabsiga Mandheera qof kama xidhnayn kuwii dalkan xuduudihiisa soo koobayna hal qof kama xidhnayn waxa ku xidhnaa dad masaakiina oo qaarkood dulmiyo cadcad oo darkaysa lagu soo xukumay baa ku xidhnaa intaasana tusaalaydu ku filan qodobka saddexaad waxaan u gudbayaa reer wadalban gudbayaan la hadlayaa muuse xariga maxamed abiib maanu ii jeeday mise reer wadal buu jeeday labadeeda kuu jeeday qodobada soo socda cadaynaya muuse oo boorama jooga inuu xarigayga amro ujeedo nooca ayuu ka lahaa maaliga ayuu ii jeeday mise reer awdal ayuu jeeday muuse wuxuu jeeday reer awdal buu jeeday waayo xarigayga wuxuu amri karayay isagoo hargeysa jooga wuxuu amri karayay isagoo maad aragtay xarunta madaxtooyada joogu amri karayay muuse iyadoo laga sugayay inuu raaligelinaya apologize ka bixiyo godobtii iyo dambiguu ka galay guud ahaan reer awdal oo dhan ee uu ku sameeyey ugaaskoodii xabadda nool la dhacay markuu boorama tegey halkii apologize laga sugayay wuxuu yidhi wardada apologize u qalmama tiidine kan kale meelaha ka hadlaaban xidhaya amar buu soo bixiyo aanu xidhay sidaa darteed aniga muu jeedin idinku idin jeedin wuxuu ahaa xadhigaasi waxba ma tiidina isagoo cod doonaya inuu aniga xidhan maanta wuxuu ahaa waxba ma tiidina waxbana idinkama baahnin cod haddaan idinka baahda bay ahayd waan idinka iibsan ama xoog baan idinkaga qaadanaya markaan kuwiinna wax garanaya xidhxidho ujeeddada taasina waxay caddaynaysaa inuu reer awdal ujeeday bay caddaynaysaa un aniga ii jeedin haddaan wax intaa ka badan idinka baahdana wuxuu yidhi sidaan idin maali jiray baan idin maalaya waa garanayaayo kolba doqon baan boorima ka soo qaadanaya ujeedooyinka aan leeyahay ka dhex fuliyaan soo qaadanayaan wixii noole aragtideeda diidana dhegtaan ka dhufanayaabee taasina waxay caddaynaysaa inuu muuse aniga ii jeedin oo reer awdal u jeeday haddaa garanaysaan iyo haddeedaan garanaynba wuxuu idiin samaystay yidhi wuxuu samaystay kala qaybi oo ku dhex abuur kuwa gef kasta oo aad gelayso kuu fuliya kuwaasina way badan yihiin iyagoo waaweyn iyagoo yararba muuse u shaqaynaya ugu dambayntii reer awdal waxaan leehay waad ku mahadsantihi sidaad ii dhegaysateen maalintii hore ee aan isku nimi boorima waxaad mar labaad ku mahadsantihiin sidaad ii dhegaysateen anoo jeelka ku jira oo xidhan oo aydaan u samaynin wixii uu muuse doonayay oo ahaa in mudaharaad iyo dagaal uu ka dhaco gobolka uu ka helo cimri dherer iyo maad aragtay iyo waqti uu doorashada ku diido uu ka helo aad iyo aad baan idinka mahadnaqaya dad badani waxaa laga yaabaa inay dhaliilsan yihiin markii maxamed abiib maad aragtay la xidhay maxay reer booraba u hadli waay u mudaharadi weyn anaa diiday anaa ku yidhi fadhiya maanta wuxuu maalin walba muuse doonayo halka kalean ka taaganna muuse hadduu mudaharaad doonayo nabadaynu doonaynaa maalinta uuna mudaharaad doonaynin waa lagu mudaharaadaya muuse aad iyo aad baa taana ugu mahadsantihiin walaalayaal reer booromow reer awdalow taariikhda dulmiga iyo qoorjabinta ee dadkeennu aniga iguma bilaamin waxaa tusaalaydu ku filan in madaxweyne muuse biixi uu maalin cad uu halkaa ugaaskiina xabad nool kula dhacay qofna kama hadal dadka kale jamhuuriyadda somalilan ka soo jeeday madaxda dhaqanka ah ee beelahaanu dalkan wada leenahayna kamay hadal
mararka qaar waxaan kala garan waayaa muuse iyo kuwa dibadda jooga waan kala garan waayaa waxay ahayd inaa apologize dhaqan laga bixiyo waayo maalin walba madaxda dhaqanka ee burco kuwa berbera iyo kuwa hargeysi markay dhibaato ka dhacda saddexdaa magaalo dhexdooda way gurmadaan way yaacaan milyan baa la bixiyaa oo lagu kala furtaa dadkaa dhexdooda markay dhibaato dhacdo laakiin marka dadka kale la dhibaataynayo intaad cimaamada huwataan ayaad hodheelada city plaza mansoor iyo ambassador iyo maxaa la yidhahdaa maasoorka berberaad ku dhuumataan taasina inama dhaqayso marka dad sool ayaa shalay toole markii la dulmiyey waa daawanayseen ee dagaalku bilaamay guddiga habar jeclaa daawanayay dhaqanka habar jeclaa daawanayay ka garxajis baa daawanayay ka habar walbaa daawanayay markii laagi gacalibaax dhibaatadu ka bilaabantay waa guurayseen waa yaacdeen oo maad aragtay dhibtaa inaad madaxa qabataan baad ku daydeen intiina ganacsatada waaweyn ee dahabshiiliyeyna maxamediyadii ugu horreeyaana $1 milyan lacagoo magabay bixiyeen adeer dadka kale marka la dhibaataynaya haddaa ka qaban weydaan kuwa dulliga ee siyaasadda usoo doorateen ee hargeysa fadhiya haddaa ka qaban weydaan dee ma noqonayso si loo wada noolaado la garan maayo reer boorama waad ogtihiin dad ganacsataa oo wax soo iibsanaya oo hargeysa u socda ayaa 2009 jidkaa lagu gowraco lagu laayay cid ilaa maanta xisaabisay iyo cid loo xidhay iyo cid loo dila midna ma jirto maalintaasaa cirdigiin iyo sharaftiina la banaystay markaa xildhibaan la xidho agtiina waxba kama aha anigana agtiida waxba kama aha saraakiil ciidan baa la iska laayay iyagoo shaqo qaran ku jira oo gobolada bari lagu dilay cid wax iska weydiisa ma jirto sidaa darteed waa iska caadi maxamed ayuu la xidho inuu gaas kala rasaasayeen wax iska caadiya waayo marada laynagama laabto maanta waxa keenana waa siyaasiyiin weeye iibsada weeyaan dhiiggiina waa siyaasiyiin iibsada dhaqankiina waa siyaasiyiin iibsada sharaftiina oo doqmo ah iyo salaadiin doqmo ah oo maalinta qof xun loo galo maalintaasaa shaah la siiya shaah oo la yidhahdaa hadduu xildhibaan xidhayo xildhibaankiina iska dhaaf maxaad kaalisa hadduu bakshiishkaaga qaado iska qaata haddii qof la dilo kaasaa maalintaa qaata maxaa la yidhahdaa bakshiishkiisa haddii qof la uus aaso kaasaa qaata maxaa la yidhahdaa bakshiishkiisa qaata kuwaasaad u taqaanaan madaxa waxaan filayaa laakiin inaad hadda kadib isbedel idinka soo muuqdo waxa la diido dhagaha laga furaysto in dalkan la wada yeesho maxamed abiib waan ka hadlay marar badan madaxweynaha jamhuuriyadda ka maxkamadda jooga ka xeer ilaalinta jooga ka maad aragtay booliska jooga ka sirdoonka jooga wax alla waxa habeenkii ka shaqaynaya waxa dambiile waddankaa jooga aan eegayna aniga igu foogani waa kuraasidii aan wada yeelan lahayne qayb ka mida dadka anigu aan matalay fadhi lahayn taana in waa la dhageysan waayey waxaase soo dhawaatay xilligii la dhageysan lahayo qasab lagu dhageysan lahaa baa soo dhawaatay walaalayaal reewdalo waxaan idinleehay waa inaan halkaas ku eekaato ma sii socon karto sidana kuma sii jiri karno haddii aad isla qaadataan sidan baan kusii jiraynaa dulinimadaasaan ku noolaanaynaa maxamed abiib idinka mid buu ahaanaya because qofka ummadiisa kama cararo kama tego markii reer bani israa'iil ay hore u socon kari waayeen ee laga xoreyn kari waayay qabdiinta nabi muuse iyo haaruun calayhim assalaam kamay tegine yatiihuuna fil ardidii ilaahay yidhaar 40 sannadood baa tiih ku jiraysaan way kula jireen iyagoo reer bani israa'iil 40 sannadood oo tiiha ku jirana maxaa la yidhahdaa way ku dhinteen 40 sannadood oo tiiha dhexdooda ku dhinteen nabi muuse iyo maadartay iyo nabi haaruun calayhi salaam aniguna idinkaan idinka mid ahaan iyo tiihaasaan ku jiriyaa waayo waxaan saw leh xaq ayaanu leenahay inaan dalkeenna xorriyad iyo karaamo ugu noolaanno haddii ay dhab idinka tahayna taasna cidna kama baryayno waan qaadanaynaa waxaan leenahay wax cid inaga haysataa ma jirta innagaa isku maqan innagaa waxa aan inaga maqan innagaa iska haysana wallaahi innagaa iska haysana doqmaheenna inaga haya inaan xaq waxaan mudanna helno in dadkeenna la ilaaliyo in dadkeenna la sharfo in dadkeenna maad aragtay la karaameeyo cid kale mas-uul kama hine innagaa ka mas-uula diyaar mawti inaan isbedelno walaalayaal ugu dambayntii reer booramo reer awdalow maanta waan baraarugnoo jiilka cusub wuu baraarugay waxaana jira dareen midaysan oo aan aqbalin dulmiyadii hore u dhacay iyo wax la mida si looga taqalluso dhacdooyinkaa hore dadka aan matalo waxaan farayaa
midnimo iyo wadajir baan markuu horreysay farayaa sidoo kale waxaan idin farayaa in la dagaalamaa ma aha jidka keliya ee wax lagu saxo waxaa jira habab nabdoon oo ka xikmad iyo waxtar badan dhimasho iyo dhiig daata dhiiguna waa habka ugu dambeeya ee dulmi lagu diido sidaa darteed maanta xikmadda aan idin farayaa waa inaan muuse codkeenna kaga aarsanno isaga iyo kuwa la midka waa in codkiinu 180,000 ee coday yaalla muuse maanta laga codeeyo taasi isaga maaha digniinu maaha isagu ciqaabo maaha waxay digniinu tahay oo ay fariinu tahay kuwa ka dambeeya inaana idinla imanin edeb darooyinka uu muuse ku sameeyay sharaftiina iyo karaamadiina kuwaasina digniin buu codka buuran ee aad maanta bixisaan kuwaana digniin buu yahay maanta waynaan jamhuurka codkeenna isugu geynaa inaan muuse ummadda ka hor dhaqaajinno waa in aanu cod la sheego inaga helin muuse oo ummad Soomaaliyeed oo dhan baa idin la yaabi doonta haddii sanduuqa muuse uu dhigtay boorama saylac lughaya dila uu dhigtay haddii cod buuran lagu rido wallaahi ummadda Soomaaliyeed oo dhexdeeda dad ka takooran oo doqma ah oo liita oo hablowga la guursan baa noqonaysa waa ogtiin marka Hargeysa joogta wax la idin kula kaftama rag ma laha samarook yeen dumar bay leeyihiin baa la yiraahdaa wallaahi dumarna ma laha idin la soo socota way rag maladu de way joogan wax qoora leeyahay laakiin qoora daarad isticmaali karin saaxiibood wax iskaga dhici karin de dadku saasay qooranaya saaxiib sidaa darteed bal inta dagaal ka hadlin bal muuse ka coday horta taasna wallahi wayna jabino on taariikhda 10 mahada loogu dhigo muuse weey oo hadii aad doonayso inaad noolaataan aad karaamo ku noolaataan qodobka afraad waxa jira qodob markaan dubay joogan warayska bixiyo aad loo faaqiday baa jira oo ku saabsan jabadiya sanam dad badan baa ka falceliyay waan ku celinayay asana ma ha taariikh aan wada leenahay dadkaygu taariikhda waxba kuma leh dhinaceega wanaagsan iyo dhinaceega xuntoona labada midna waxba dadkaygu kuma leh Soomaaliland kuma dhisna aragtida sanam waxay ku dhisan tahay aragti shacab oo ay qayb ka wada hayeen beelaha Soomaaliland degan oo isku dhani ayna ku heshiyeen dawladda maanta leedahay jamhuuriyadda Soomaaliland hadalkayga hore aan maalintaas sanam kaga hadlayna wuxuu jawaab u ahaa niman madaxda dalka kamid ah oo yiraahda qofka SNM diidani Soomaaliland kama mid aha iyo qof aan SNM hayni Soomaaliland lagu aamini maayo taam yaan aqbalay anigu de SNM kamid maan hayni miyaan aqbalaya aqbali maayo walaalkeen aqbali maayo ninka gobolkayga la soo jeedaan aqbali maayo waayo de waxa tahay waa takoor laakiin Soomaaliland baa wada leenahay SNM ma wadalhiin halkaas aad ku haysanaysaa gurigaaga aad ku xusaysaa jacaylkayga anagu kugu ma haysano wanaageygana kugu ma haysano dad wixii dhibaato ka soo gaadhayna ma dafirsanin oo dad badan bay dhibaato ka soo gaadhay waxa la yaab leh dawladnimada iyo heshiiska bulshada darteed waxaan u dul qaadanay laba wiil oo ka hore ay dawladdii Soomaaliya dishay aabihii ama hooyadii ama walaalkii ka dambana ay SNM dishay mid waxa la yiraahdaa aabaha wad xusi kartaa midna ma xusi kartid bal ma soo hadal qaadi kartid waan u dul qaadanay doqonnimo loo qaato waxa la marayaan la yiraahdo qof aan SNM badalka loo dooran maayo qof aan SNM hayni Soomaaliland ma la maray halkaas aan la maraya taana ma aqbalayno waan ku cildiyaa hadii dab la soo hindhisayo ma aqbalayno Soomaaliland baan ahaanayna hadaa Soomaaliland la diido de waa xawayaan de waxay adaas ka haysanay wixii kala tahay wax intaas ka badanna oo ma aragtay isxamba boori wada arkaysan ma yarka Hargeysa oo leh qofkii aan SNM hayni Soomaaliland maaha hadalkaygu kaasu jawaab u ahaa kuwan nooca u fikiraya ayuu hadalkaygu jawaab u ahaa marka soo loo buunbuuniyo looga dhigo nin dambi ka galay diinta ma jirto dadweynaha reer Soomaaliland baa la hadlaya walaalayaal waad mahadsantihiin waan idin ogahay dareenka togan intiina ka dhiidhida gabood fallada iyo xumaanaha ay xukuumadaha fashilma falan waxaan nahay ummad midoobi karta sida kaliya inuu ku midoobi karnaana waa cadaalad iyo sinaan cadaalad darra ayay soo lugooday cadaalad baanay noo wada dana taas laanteedna midkeen ciish maayo walaalayaal cadawgeena ugu weyni
waa ninka isla taas diidan ee dagaal oogaha ee dhexdeena isku dirka ka wada weeye kaasina waa muuse iyo xukuumaddiisa weeye oo dafiray heshiiskii khaatimo dhagahana ka furaystay oo diidan wax wada lahaanshaha iyo haldoorka uu u taagnaa cali khaliif kaleed maantana annagu aan u taaganahay dhagaha ka furaystay kaasaa cadowgeennaa ma ninkaas baa golo la soo joogsan kara difaac dal iyo wax la mid a muxuu difaacdaa sawkan sidii aboorkii dalka gudaha ka dhameeyey adduunkiina ka takoray Somaliland dhammaanteen reer Somaliland waxaynu dhibano u wadanahay maamul xumada macangagnimada musuqmaasuqa nidaamka Muuse Biixi sidaas darteed waxay nagu wada waajiba inaynu maanta farteena ku ridno oo aan gobol iyo degmo kamida dalka aan cod ka helin oo aad iska dhaaftaan qabyaalada iyo kala qaybinta way ku wada inaad iska dhaaftaan wax garad reer Somaliland ayaan la hadlayaa walaalayaal waxa la yiri doqonto dulqaadka doqonnimo ayay moodaa dulqaadka dadkaygu doqonnimo maaha dagaal way yaqaanaan horana colaad reereed Soomaali oo dhan way soo daashadeen cid wax ka dheeftay iyo meel lagu kala adkaaday toona ma jirto oo Soomaali ku kala adkaatay nabadda dhowristeeda dadkaygu wax badan ayay ugu dulqaateen oo dhibaato oo idinkuna aad qisantiin Soomaali oo dhan marxaati ka tahay xilka nabadda dhowristeedu hadda kadib reer awdalo kaliya ma saarna maanta intii ka dambaysa xilka nabadda dhowristeedu reer awdalo kaliya ma saarna wax garadkeegana ma saarnaan karo nabadda waxa lagu ilaalin karaa sinaan iyo cadaalad taas ayay Somaliland shisheeyaha kaga adkaanaysaa cadowgeedana kaga adkaanaysaa reer Somaliland waxa la joogaa maanta sidii dalkan loo wada yeelan lahaa iyadoo loo siman yahay waa xujo hor taala wax garadka indheer garadka culimadiinka aqoonyahanka madaxda dhaqanka beelaha degan gobolada Sanaag waxa la yiraahdaa Burco Berbera iyo Hargeysa ayuu taalay in dalka la wada yeesho oo ay tahay fariin aan si adag u gaarsiinayo oo aan ahayn tu indhaha laga qarsanayo haddii kale maal dhow waxa arki doontaan iyadoo sidii sool waagu xagga dambe ka bariyay arki doontaan waagiinu xagga dambe ka bariyay ay arki doontaan idinna ma wada noolaan kartoona waan ognahay laba reer oo Soomaaliyeed oo amarka booliska iyo amarka maxkamaddu meel ka soo wada baxo maanta waxa jira